gabadha garanaysa waxay ku leedahay ninkii isii naftan aan arkooday ka oo damacaas eryaaya uur baa jecel aan hurayne ha aadin dhe meel kaleeto jacaylka ku aamin laabta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aasin adigu muuji oo ogsoonow inaan ku jeclahay soo dhawaada saaxiibayaal waxaa la joogaa abwaan cabdirashiid dhagajile caaqilka waa abwaan sameeyey heese kala duwan oo caan baxay ayna ugu dambeysay heestan isii nafta ama ogsoonow inaan ku jeclahay ee adduunka iyo soomaalida madaafeeda ka jirtay abwaan cabdirashiid waa kusoo dhaweynayaa bal marka hore waa kuma dhagajile maxaan saalax aad baad ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada iyo waraysigaaga intaba sida magacaygu yahay waa cabdirashiid dhagajile caaqilka degan magaalada Nairobi laakiin si muddo hadda muddo 3 bilooda ilaa August waxaan joogaa Garowe oo aan hawlo shaqo iyo xasaan u imi waayahay heesa badan baa samaysay oo taban fanaaniin badan aan ay qaadaan hees ka mid ah heesahaga ayaa Soomaalida intay dhaaftay dunida kale u gudubtay oo ah bal heestan bal nooga sheekay qisada والله محمد هاس كان هاس تاريخ له انت بدنا wax walba oo la sameeyo oo mataqaana wax ku fiican yahay leeyihiin taariikh hadii murtida suugaantu aysan lahayn taariikh ama aysan lahayn sabab loo sameeyeen inta badan ma macaanaato oo macnaha markaas waxa xooga waxaad moodaa murtida mar midna qisad dhacday baa laga sameeyaa midna mala awaal iyo waxaad mala awaashi baa abwaan ka sameeyaa marka way kala macaan yihiin heeskan waxaan sameeyay 2017kii waxaan joogay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii waxaan u ahayn koox la yiraahdo Fundis Band xilligaas wish programkaas markaan qabanayna waxay ahayd Ramadaan bay ku aadanayd laakiin exactly bishii ma xasuusto kale oo milaadiga maalintii ciidda soo bandhignay heeska sida caadadu tahay waxaan ka sameeyay qisa dhacday oo jacayl qof mataqaanaay oo qof kale u qabay anigana uu sanay iimaane intuu ii sheegay uu sanay dhihin qofkaas aan jeclahay laakiin anu mataqaanaa si kale xogta aan ku helay marka waxa jirtay maxamedow xilligaas waad ogtahay marka Ramadaanka la joogo dadku marka la soo afro intii isku kooxaha meel bay isugu timaadaayo waa macnaha afurka la iska saaraayo waa la iska sheekaysaa waa la iska baashaalaa bacda taraawix ama qabla taraawix inta ma ahaato waxa jirtay gabadh noo iman jirtay marka xaafad anigu laftarkeyga aan iman jiray oo mataqaanaa kooxdu ay lahayd inta badan kooxdu isugu iman jirtay baa dhacday gabadh baa xaafadda gabadh si fiican markaas soo naqaano laakiin si wax ka sheekaysaa mar walba marka meesha la isugu yimaado dadku wax kale ka sheekeynayaan wax ka sheekaysaa jacayl in ay u maseersan tahay oo midha isjecel yihiin anigu aan aqoonin oo ay ku leedahay kaga cabanayso inuu habeen walba marka iyadoo halkan soo aado isna inuu meel kale iyo shukaansi u aado marka iyadoo jacaylkeeda u jeedo isaguna u ka jeedo marka iyadoo isma oga marka sheekeynayso actually حتى اسمه ده هيسو ضد كان قار حكتها ذاك قري اسمه ده هيسو متقارنا هذا كذا هو صدق قلبيا بين أورميزا واحد عضي حبين كبار أنا والله يا واسك عمصي حبين كلا صولات الشيء كذي أو سيدي أو صورا بهذا كشيء نسا حلا وين يرد بصي نيدا حسك إرنيو حيت الشيء كذا حبين والبقبل أنا كشيء نسا حبين سدحات يا حبين أفراد وحارك يد القصة دي كشيء نسا أنتي مركز حق روصي inay gabadhan jacayl iyo dareen u ka hadlayaan waxa ay ka cabanaysaana ay run yihiin feelingin marka aniga galay markaas baan heesta ka sameeyay anigu marka waxaan ku fikiray hadii lacala gabadhaani ay ninkan hortagi lahayd inta ay warkiisa idin sheegayso markii isaga ay hortagto maxay ku dhihi lahayd sidee bay ula garami lahayd sidee bay u sheegi lahayd waxa iyada hadda qalbigeeda ku jira iyo xanuunka ay dareemayso oo intay qarsan weeyay maalin walba dadkan shacabka ay agnafisto qaabkay u sheegan lahayd baan sawirtay sidaas aan heeska ku sameeyay marka ereyadeeda ka bilaabay maxaa marka bal hadii aan maqashiis ereyada gabadha garanaysa waxay ku leedahay ninkii isii naftan aan arkooday ka
oo damacaas eryaaya uur baa jecel aan hurayne ha aadin dhe meel kaleeto jacaylka ku aamin laabta qalbiga ku abuur dareenka ubaxa aan beeray maanta ha aasin adigu muuji oo ogsoonow inaan ku jeclahay marka halkaa markaa marayay baan isiri ninka waa soomaali soomaaliduna waa iska jiraar badan yihiin talow inta hadduu wax ku fahmi waayo oo af soomaaligaas ay wax u sheegtay u fahmi waayo u garaabi waayo gabadhaas maxay ku dhihi kartaa ana I love you more than my life luqad kale hala aado macnaha anigu waa iska qiiraysanahay iyadii baan macnaha inaan ahay baan is sawiray ma fahanti oo iyadii aan qareen u ahay lacala haddii ingilishkii ku fahmi waayana waa inay af carabi la aadaa oo luqadda kale oo mataqaanaa dee iyana international ah taa hadduu ku fahmi waayana waddanka aad deganahay luqadiisa oo nakubenda mimi saana ah iyana aad baan kuu jecelahay macnaheedu uu yahay marka waxay leedahay waxaasoo dhan aan ka hadlayo kunka luqadood aan ku macnaha kugu sheegayo waa ujeedada caashaqayga ama ujeedada caashaqayna heeskaas walaahi markii aan anigu ereyadaas qoray waxaan u dhiibay nin la yiraahdo cabdimudalib ciise saalax oo halka aan ka salaamayo oo laxamiiste weyn ah heesayga inta badan la xameeyay waxaa markaasna la joogay muusishankayga weyn oo xilligaas ilaa haddana marna abtiga marna muusishankayga ah maxaa cabdullaahi diiriye bulshaawi oo hargeysa hadda ku nool oo bulshaawi hitmaker la yiraahdo ninkaas muusigiye badan oo garaacana dee ay hirgaleen markaan u dhiyay waxaan ku yiri cabdimudalib heeskaan la xamee marka intii dambe waxoogaa wuxuu yiri warniyo say wax u jiraan dee Soomaali baa iska ogeyn intaan kala luqadaha kala see ahayd marka waxyaalo badan baa igu kalifay oo ah fanka Soomaaliyeed weligii waxaan ku fikirayay inuu adduunka dacladiisa gaadho in dadka kale ay ku hadaaqaan sometimes xilligeedana la gaari doono waxaan ku oray sidaas baan anu dhisan gareeyay humaag baa la arkaa marka suugaanta sameynaysid wax adigu aska sameynaysid ma aha waa wax iyadoo ay ku amrayso ay ku leedahay saana qurux badan saana qurux badan saana qurux badan marka maxamed saasi qisadeedu heeska saay way 4 sano kadib bay heesta qaraxday oo dunidii oo dhan u soo jeesatay maxaa u malaynaysaa sababta ay hadda u qaraxday inay tawaago wallahi sababta ay u qaraxday horta sabab badan baa jira wax walba waqtigooda inay leeyihiin hadda waxa laga yaabaa anigu waxaan sameeyay heeso badan oo Soomaalida ay qaado waxa laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed in ka badan oo wajh muuqayga ma yaqaanaan sababtoo ah inta badan dadka anigu kaamarada hor yimaada ma ihi oo waxaan jeclahay inaan maaragtay daaha gadaashiisa mar baan ka soo hadlo fariintii dad badan baa yiraahdeen muuqaaga iyo maqalkaaga isma leh dadku aalad badan bay isticmaalaan leef bay soo galaan inta badan iyagoo cayaan raadinaya iyagoo wax kale raadinaya waxa ii sheegay halkaas horta laba cilmi baa ku jira cilmiga koobaad ku jira waxa weeye Soomaalida fanka waa ku dulmanahay marka la dhaanka fanka ama fanaan ha noqdo ama abwaan ha noqdo ama watiba ha noqdo waxay dhalinyarada Soomaaliyeed oo fanka jecel waxay tusaale uga qaadan karaan inay wadooyinka hadda la marayo ama kamariyaashan hadda heeskan qaatay kale oo soo codsaday oo kale inay mar walba ay ku tala galaan fankooda inay adduunkana gaarsiiyaan ay maaragtay benefitna ka helaan ama ay macnaha nacfi ka helaan iyo dhaqaale way hadda see u aragtaa in ay heerka gaadhay hees iyo eraya aad u samaysay wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu faraxsanahay horta laba waxyaalood baa jira wuxuu ilaahay qofka bini aadamka ugu tala galay cid bini aadamka ka celin karta horta ma jirto gabadhaas nimco waxaa salaamaya ina xamar bay joogtaa waa gabdhihii aan ka soo saaray kooxda Fandisban oo mataqaanaa markaan xilliga Nairobi joognay oo kooxda ku jiray una cadda fankeedana qayb weyn aan ka ahaa waxa laga yaabaa aniga aniga qalbigayga dhaqdhaqaaqa markaa ku jiray ama waxaan dareensanaa horta heesku xilligaas Soomaalida dhexdeeda almost 2 milyan xasaas ah milyan iyo half daawada iyadoo program laga sii daayay kuma xumayn laakiin si Soomaalidu inta badan ma interest gareeyaan inay la xiriiraan luqadaha qalaad xiriir ka dhaxeeya iyaga iyo luqadaha qalaad TikTok oo maanta xoogaysta ma malaynaysaa inuu soo qaado waa saameynta ugu badan horta xilliga aanu heeska sameeyay TikTok ma jirin
maybe haddaan khaldanayn 2017kii tiktok lama isticmaali jirin 19ka dhamaadkiisa waa aad u saacan ها 19 dhammaadkiisu aad soo canbaxay aaladaas horta sababta koobaad waxay ahayd waa aaladaha xiriirka adduunka de hadda fududaaday ama tiktok ha noqdo ama aaladaha kale la isticmaalay waxay qabtaa ahaatay oo fududaaday oo hees walba dhawaqeedu meel fog uu gaarayo waa qodob koobaad qodobka labaad tuduucda u dambaysa inagu jacaylka waynu jilaa kuma dhaqano laakiin dadka bini'aadanka oo kale oo ama gaal iyo muslimba oo adduunka ku nool inta badan way ku dhaqmaan waadhiska qofka uu qaadayo waxaa laga yaabaa sida inuu wax kale u qiiroono inay ugu qiiroodaan way ka dhabtahay wax kale oo isfahan kale oo bini'aadanka ka dhexeeya oo dee tan iyo xaawiya aadan soo jiray baa nagu jiraa meesha oo luuqadan jacaylka waa luuqad ka wada dhaxaysa adduunka oo dhan wax walba jacayl ka hadlayana waxay macnaha aad bay u fududahay inay hore hadda adiga nimco oo qaaday iyo adoo sameeyay erayada ma jiraa qorshe aad leedihiin oo hadda in fursadan aad ka faa'iidaysato wallaahi wuu jiraa qorshaha horta muhiimadda koowaad waxa waaye kamriyaasha ama gaalada inta badan hadda ma taqaanaay dee dhaqaalaha raba inay ku bixiyaan heeskan ama interest garaynaya waxaa wakiilka ah qofkii gudbiyey markeedii oo codkeedii maadaama aanu ahayn creative-kii inta badan waxaa laga yaabaa inaan anagu toos aan ula xiriirin oo nin cadaana maanta hebelo abwaan baan ahay inta dhahay uma daysid laakiinse xiriiro badan baa jira oo noo socda oo rajo badan baan ka qabnaa inay maaragtay iyada iyo heesaha ka dambeeya heesa kasii dambeyn doonaba inaan maaragtay kamriyaashaas hadda ka bacdi aan la galno heshiis waay ma islaadahay fankii wadiiqa cusub buu qaadaya soomaalidu ah inuu heer caalami noqday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu heerkaas gaadhay oo maantayto carabi iyo cajab Chinese iyo mataqaanaa European iyo meel walba iyo Afrikaanba ariga Soomaali ay ku hadaaqayaan Soomaalida waxa ku amaadaa nin isfaashi war isnuugtay laakiinse abaan yamin baa wuxuu yiri maama fog baa tiri nin ammaantii meeshaari ismaashi weeyaan mid kale ka daba tiri hadii ay ku moosan kartaa la isku muujaa marka aan badhaho waxaan ku faraxsanahay anoo ka afeeftay in maantayto fikir aan fikiray inuu adduunka oo dhan gaaray mana aha magac kaliya aan rabo waa magac Soomaali oo dhan soo riday baa aaminsanahay waan ku faraxsanahay sidoo kale dhalinyaro Soomaaliyeed waxa jiray aad u xoojiyay anagu de ama ka fanaan ahaan ka abwaan ahaan ama ka fanaan ahaan taqaadnay heeskii maana geeynin adduunka waxa jiray dhalinyaro kale oo iyaguna xusid mudan anagu magacyadooda ma garanayo maybe waa dhalinyaro TikTok isticmaasho oo la sheegay gabar baa ugu horeysay gaarsiisay iyadana u mahadnaqaya magaceeda ma garan karo laakiinse halka amaan baa u marinaya insha Allah waan jeclaanahay inaan maaragtay si gaar ugu hambaliyo fariintaada ugu dambaysa maxaa dhihi fariinteeda ugu dambaysa waxaan leeyahay fanka Soomaaliyeed wuu socon doonaa meeshaan iyo meel ka sii sareysa buuna gaari doonaa insha Allah taala inta aan noolahayna afku ma dhimanayo gaal iyo cadaan buu gaariyaa aad iyo aad u mahadsantahay